madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay howlgallada ka soconaya gobolada dalka. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay howlgallada dib u xoreynta ah ee ka soconaya qaar ka mid ah gobolada dalka. Madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ku booriyay in ay ku kalsoonaadaan dalkooda ayna u dhabar adeegaan dhibaatada adag ee hadda ay wajahayaan. annaga dalkan buqcadan yarta oo geeska Afrika ku taalo oo Soomaaliya la yiraahdo ayaan adduunyada ku leenahay ummad walba dhulkeeda ay ku faantaa ay ku nooshahay karaamo iyo sharafna intaan ku leenahay marka allaale marka inta ka baxdid ajnabiya tahay meel kasta ee dal kasto qurxan meel kasto degtay dalkaas qurxoon oo faraha badan oo quruxda badan dadaa dhistay askare annaga kanaan leenahay waa dhisa karnaa waa hagaaji karnaa laakiin waa inaan fahamnaa caqabadaha naga hortaagan soddonka sano ee Soomaaliya dhibaatada ay ku jirto waa soddonka sano adduunyada dhan ay horumartay tiknoolajiyada horumartay dhaqaaluhu horumaray oo dalal badan ay aad u dhaqaaqeen annagana dhibaatooyin badan aan ku jirno waxaan aaminsanahay weli dabarkii aan ugu xiran dadka Soomaaliyeed dabarka haddii laga furo soddon sano maahana ka yar inay adduunyada tagto uga daba tegi karaan ayaan aaminsanahay nimankan shabaaba adeegyada aaliyaadka ama toolska naloo adeegsaday in dabarkaan ugu xirnaado ay ka mid yihiin ilaahay idinkaas dabarka waa iska gooyne waa dhammaystiraynaa inta dhimanna telefishinkan doorkiisu waa kaas dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan xaqiiqada dhabta ah ee arrimaha xoreynta dalka iyo muxuu ahaay wacyiga saxda ah meesha uu ka socdaay waa channelkaas dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan inay ku xirnaadaan aan rabnaa SNTV2 daljir channelka la yiraahdo oo ay maxaan ku raadayay saas ay ula socdaan shaqaalaha iyo madaxda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta runtii juhdi badan geliyay anagoo og duruufaha lagu shaqeynay inay adag yihiin awoodda dhaqaale ee la haysta inay xadidan tahay awoodda tiknoolajiya la haysta inay xadidan tahay wax walba inay xadidan yihiin haddana television standard oo qualitygiisa wixiisa ay saas u sarreeya inay keeneen waa arrin aad iyo aad bogaadin u mudan khatartay u bareeraan inay frontiga tagaan oo ay maxaan ku raadayay waxa frontiga ka jira ay keenaan ay dadka tusaan lafsadeeda waa dhiiri waxba kale ma duwana wariyaha guud ahaan de saxaafadda ka shaqeeya gaar ahaan wariyaha ka shaqeeya SNTV iyo askariga frontiga ku jira waxba kale ma duwana laana frontiga wada joogaan meen haddii dad ku qarxayso waa ku wada qarxay xabad haddii dad ku dhacayso waa ku wada dhacay meeshii taagan yihiin nimankii muxuu ahaay ka socday guud ahaan warfaafinta gaar ahaan muxuu ahaay SNTV marka waxaan leeyahay wiilashaas Soomaaliyeed ee halgamayaad ka mid yihiin halgankiina wada ku adkaysta shabaabna waa ka adkaanayna waqti dhow waliba aan dheereen haddii alla yiraahdo guul ayaan idin rajaynayaa hambal ayaan leeyahay